taliyaha ciidamada qaybta 27 waxaa socdaalka ku weeliya baanduulaha ciidamada qaybta 27 waxaana garoonka ku soo dhaweeyay saraakiisha guutada shanaad ee gobolkan Hiiraan. waxaa si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada Beledweyne waxaana la xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada iyadoo muddo kooban hakad galeen socodka gaadiidka. saraakiishan ayaa waxa ay kormeereen xarunta ciidamada ee magaalada Beledweyne halkaas oo kol hore ay ciidamadu ay dhiseen. taliyaha ciidamada guutada shanaad ee gobolkan Hiiraan Colonel Farax Ali Waasuge ayaa hadal soo dhaweyn u jeediyay saraakiisha maanta timida. xeradaadii waa aragtaa shaqadu sidii u socotay iyo badiilka hadda tuurma waa aragtaa saraakiishu say ku soo dhaweeyday waad aragtaa sida lagu heelayahay waad aragtaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee degan gobolka Hiiraan ha noqdo 22aad iyo guutada iyo ha noqdo guuta shanaadba wuxuu diyaar u yahay waajibaadka aad wadid inaad siisid wuxuu diyaar u yahay inuu cadawga dalka ku xureeyo wuxuu diyaar u yahay inuu habeen iyo maalin u soo jeedo qaranka Soomaaliyeed difaaciisa wuxuu diyaar u yahay wanaaga iyo guul soo hooynta qaybta 27aad soo dhawaada wixii aad noo wadidna aad noo sheegi doona waxaad noo wadina waa noo wada sheegi doontaan waxaad waajiboodna sii doontona waa qaadan doonaa. taliyaha ciidamada xoogga qaybta 27 General Maxamuud Maxamed Macalin ayaa sheegay in socdaalkoodu salka ku hayo in saraakiisha ciidamada guutada shanaad ay kala hadli doonaan arrimo badan oo markaasi la xiriira dhinaca ciidamada. waxaan la socdaa meeshan waaxii qaybta 3 waaxood oo iyagu u kurgalaya mataqaanaa maaragtay meesha tababarka oo la socdaa geedka la socdaa waxaan la socdaa xafiiska ciidanka ayagoo ogaanaya ciidanka tayadiisa iyo qalab waxay haystaan iyo dugsiyada tababarka meesha lagu qaban karo haddii aan lahayn inaan hadda dhismayda diyaarsano iyo naqshadeeda u gudbay taliyaha xoogga hadana meesha dugsiga tababar u baahan yahay xeeradan labada guud ay degan yihiin tababarkooda halkaas lagu qaban karaa aan u calaamadeyno wuxuu ku bixi lahayo qarashkeeda injineer Suubiyaan waxay u taalaa madaxa mataqaanaa waaxda tababarka dhismay u taalaa waxa u taalaa kala waaxda gaadiidka wuxuu xisaabanaya gaadiidkii dadka ciidanka oo personalka loo jooga darajada kale leeyihiin iyo waxyaabo maqan si xilaa waa nala socdaa maanta inta waxay la shaqayn doonaan laamaha oo guutada ay la shaqayn doonaan marka war ku soo dheeraan doono waa meesha kaliya aan ku faraxsanahay imaasheeda hadda meeshan qaybtu waa ballaaran tahay guutooyin kala jira ilaa cadala jira qaar barca jooga qaar joohar degan qaar bulubar degan wadaad macnaha taaskeenu ugu weyn intuu noqon doono anaga ka bacay hadda xoga dambe anigu waxaan u soo jeedaa dhismaha degan baadka loo sameeyay marka insha Allah halkaan soo wada guurinayna taas xoga intuu imaan doono jaalno marka Ibrahim Maxamed Geedi warbaahinta qaranka Beledweyne.